السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayal kusoo dhawaada meel kasta aad joogtaan barnaamijkeennii ma og tahay waxaynan insha allahu tacaala kusoo qaadan doonaa laba arrimood oo aad iyo aad u mucjiso ah oo dunida oo dhan ka yaabiyey labadan arrimoodna waxaa ka waramay xabiibkii mustafa sala allahu calayhi wasalam muddo laga joogo 1400 oo sannadood ka hor waxa uu soo saaray imaamu albukhaari حديث أو ورنا يا أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا هريرة إله الرالها كهذا وحكور يا رسولك الله نحريس ينبدل يا إلهي كركيس هيا لينو يري إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح هدي متكين ويلكيس وكدع دقسيقو هبقوسي الدقسيق كله كدونها كسوسارو فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء محايا لبدا بالود دقسيق مدوحا أهادي دو ككلنا وحا أهادي عذر حديث كان عجيب كأه أي النبي قوحو تلماميا إن دقسيق الدولة ويلك كدعا ما ويلك بيها ما عنتوينكو أي كتيران إنو هديا جرالا وهو الرئيسين يوبالك وعذرك وكوتو dabadeedna wuxuu inoogu nasteexanayaa oo inoogu waaninayaa in haddii ayba dhacdo duqsigaasi waa inaad quusisaa oo aad gelisaa weelka uu ku dhacay si labadiisa baallood markaa ay u taabtaan meeshii ama weelkii gudihiisa kadibna waxa ka soo saaro arrintan mucjisada ah ayaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ummadiisa faray muddo laga joogo 1400 sannadood haatanna iminka casrigan iyo qarnigan aynu noolnahay waxa ay culimada ugu waaweyn ee sayniska iyo dhakhaatiirtuba ay ogaadeen in duqsiga labadiisa baallood uu baalna ku wato cudur baalka kalena uu ku wato dawadiisii waxay ogaadeen culimadu oo daha laga qaaday in baalka uu ku wato cudurka ay tahay cudurrada bakteeriyada iyo jeermiska halka baalka kalena uu ku wato ama jeenigiisa kalena uu ku wato viruska la yidhaahdo bacteriophage oo burburisa bakteeriyada si kale haddii aynu dhigno waxa uu labada baal uu ku wataa jeermiska bakteeriyada dhalisa ama cudurrada dhalisa kan kalena wuxuu ku wataa virus disha bakteeriyada ku jirta jeenigeeda kale subxaanaka yaa allah yaa uga warramay xabiibka moxamed sala allahu calayhi wasalam in labadiisa jeeni duqsi aan cidina arkaynin isagoo aan haysanin microscope uu wax ku soo weyneeyo ama kubaacooyin wax soo weyneeya yaa uga warramay in duqsigaasi labadiisa baal uu ku wato midna cudur midna uu ku wato dawadiisii arrintaasi xitaa waxay kaliftay inay culimmadu dib u baadhis badan ay ku sameeyaan oo ugu dambayna ay baalkii dawada ay ku jirtay ay u adeegsadaanba in ay kula dagaalamaan cudurro fara badan oo ay bakteeriyadu dhaliso subxaanaka yaa allah qodobka labaad ma og tahay walaalka islaamka ah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo tala bixin ahna uu inoogu dardaarmay xadiiskana waxaa soo saaray imaamu tirmidi iyo kayrkii وحنا ورينا صحابي مقداد بن معدي بن كرب عن مقدام بن معدي بن كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مقدام ابن عدي كرب وحلق وري صحابي قاسي إنو يري وحان مقل رسولك الله نحريس ينبدل يكركيسها أهاتي سقاله ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بني آدم مبوحيه ويل كشر بدن علوشيسا بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه وحكفلا آدمه أما بني آدم كين هرموين يرير أو كتيرين أيام أو كستاجين أيو أتكانتيسا فإن كان لا محالة فثلث لطعامي هدي لغا ممارمان النقطين عنتو عنو وإن أتصدح ميلود ميل كدغتا عنتا دادا وثلث لشرابي صدح ميلود ميل كلاد كدغتا عبدادا وثلث لنفسه صدح ميلود كلانا وإن كدغتا نيف قادة شدادا حديث كان عجيب كأه معجسة أه لياب كله علمي كفردية أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو كور رمي مدلقة شوغا كنيا 400 سنة كهر
waxaana dunidu maanta ay ogaatay in qaabka ugu wanaagsan, ugu fiican, ugu caafimaadka wanaagsan, ugu saxada wanaagsan ay tahay inuu qofka bani aadamka ahi uu isu dheelitiro cuntadiisa, cabbidiisa iyo neef qaadashadiisa. arrintanna waxaa ku soo islaamay culimo waaweyn oo looga dambeeyo cilmiga dhakhtarka ama caafimaadka ama medicalka, iyo culimo waaweyn oo kale looga dambeeyo nafaqa qaadashada ama nutritionka waxa loo yaqaano. waxaa ku soo islaamay caalimkii weynaa oo u dhashay waddanka Maraykanka, asal ahaana ahaa nin yahuudiya oo la odhan jiray Andrea Weil. Andrea Weil wuxuu yidhi muddo 40 sannadood ah ayaan waxaan baadhayay enziimada ama dheecaanada caloosha jidhka bani aadamka uu soo daayo. waxaanan ogaaday ayuu yidhi qaabka ugu wanaagsan, ugu fiican ee ka hortagga leh ee dunida oo dhan caafimaadka iyo sixada u haya. waxaan ka helay buu yidhi xadiiska uu wariyey nebiga islaamka ee Muxamed sallallahu calayhi wasallam. kadibna arrintan markii uu sii dabagalay wuxuu ogaaday in xadiiskani uu yahay mucjisooyinka waaweyn ee uu soo wariyey nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, isagoo oo markaa maanta laisla qaatay in caloosha bani aadamka qofka caadiga ah ama normalka ah calooshiisa badkeeda ama masaafadeedu ay dhan tahay 1500 oo sililitir. sidaa darteed haddii 1500 aynu u qaybino 3 qaybood, 500 waxaynu ka dhigaynaa cuntadii, 500na waxaynu ka dhigaynaa cabbidii, 500 oo kalena waxaynu ka dhigaynaa neef qaadashadii. waxaana haddana la yaab iyo mucjiso noqotay in sanbabka bani aadamku marka uu neefta qaadanayo masaafada uu u baahan yahay ay noqotay 500. subxaanaka yaa allah, yaa uga warramay xabiibka Mustafa sallallahu calayhi wasallam arrimahan cajiibka ah ee bani aadamku iminka ay daaha ka qaadeen, iminka un la ogaaday. waxaa uga warramay oo ay uga timi xagga allah subxaanahu wa tacaala. sallallahu ala sayidina wa xabiibina wa qurrata acyunina Muhammad wa ala alihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin ila yowmi ddiin. intaynu walaalayaal barnaamijkeenan ma og tahay mar kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.